عارضka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa haatan dhiiqa lugaha kula jira digniin muwaadin ha samaynin ficilka ay sameynayaan dhalinyaro fara badan oo barta Facebook caanka ah qaarkoodna wariyaal yihiin waxa ay la challenge gareynayaan iyagoo siyaasad ahaan adeegsanaya Professor Maxamed Xaaji Ingiriis oo waraysi uu siiyay barnaamijka ha noolaato sheegay in kiyaalaha uu ruugo marka uu soo hormaro qof ka fikir duwan oo taageersan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo midaan noo yid marka gacanyaro u ahaa asaga oo la yiraahdo Cabdi Saqaato oo la og sardoonadan soo waa la og ayaa soo galay oo nin dawladnimada dadka ku abiyuusa ah Farmaajo la qaraaba ah dadka aad u dhibaatay haddana banaanka lagu soo tuuray meel loo saranadan ku arkay salaanta kama qaadin saasaan u fiiriyay والله بالله ساسان كو إرده ساسان واحد مرة ويخص لا كودا psychological warfare باب عبوسة ما psychological warfare Soomaaliya dalabta aka gashay laga ma afin doono hadaba waxaan warbixinteena ku oogi doonaa dhaqanka uu ku yaalaha la ruugo cid ay astaanta u tahay xilligan samafala Sheekh Cabdimaalik Muuse Caldoon ayaa xabsi waxa ugu jira qowmuluudnimo ka jirta iskuulka Abaarsow dhaqamadii uu soo bandhigayna waxa kamid ahaa hablo carabka kor u taagaya iyo wiilal haddaba dhaqankan ayaa waxa uu markaasi uu astaan u yahay dumarka jirkooda ka ganacsada ee ku sugan wadamada reer galbeedka dhalinyaro fara badan ayaa doonaya inay sameeyaan iyagoo siyaasad ahaan u adeegsanaya haddaba waxaynu idan leenahay wardameer dhaan raacday ha noqonina oo ka jooga ficilkaas guracan ee ay sameynayaan rag siyaasiyiin oo uu ka mid yahay Axmed Bacalin Fiqi wariyaal uu ka mid yahay Cabdi Casiis Golf iyo sidoo kale Professor Maxamed Xaaji Ingiriis